waxa iigu la yaab badnaa qisadan oo uu inoo sheegi doono Siciid Cali Muuse kuna saabsan nin Soomaaliya. Siciid, bal hadda marka hore sheekada nooga dhac. sheekadani horta waxa ay marka hore ka baxday oo laga sii daayay laanta af Soomaaliga ee BBC-da bishii 8aad ee sanadkii 1982 waxa ay ku saabsan tahay nin Soomaali ah oo ku soo barbaaray miyiga degmada Laasqoray. dabadeedna sanadihii 20-yadii waa 1920-aadkii ayuu soo galay waddankan Ingiriiska. sheekada inteeda la yaab kale halkan ayaa Cabdisalaanow ka bilaabanaysaa dhowr sannadood kadib markii uu ninkaasi soo galay waddankan Ingiriiska ayaa waxa uu ku biiray koox rag ahaa oo Ingiriis ahaa oo saluugsanaa sida markaasi loogu noolaa dalkan Ingiriiska iyo weliba qaaradda Yurub. gaar ahaanna waxa ay kooxdaasi diidanayeen nidaamkii ku salaysnaa dawladaha ee markaasi jiray, iyaga oo qabay in adduunyada ay u baahan tahay hab cusub oo aanay jirin wax kala qoqoba amaba kala xidha dadka ku nool adduunka oo dhan. haddaba ninkaasi Soomaaliga ah oo la oran jiray Ibraahim Ismaaciil waxa uu kooxdaasi la noolaa muddo 5 sannadood ah. waxa uu kooxdii uu ka mid noqday uu uga warramay dhaqankii ay lahaayeen dadkii Soomaalida ahaa ee markaasi jiray, khaasatan kuwa reer miyiga ah. waxaana markii dambe sheekooyinkii Ibraahim Ismaaciil buug Faransiis ku qoran ka soo saaray nin u dhashay waddanka Belgium oo kooxdaasi madax u ahaa. Siciidow waa sheeko la yaab leh, laakiin sidoo kale waxa iyaduna la yaab u leh waxyaabaha uu ninkaasi Ibraahim Ismaaciil ka sheegay noloshii iyo dhaqankii hore ee Soomaalida oo aan filayo inay aad uga duwan yihiin waxyaabaha maanta jira. haddaba waa kan Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo inoo sheega qayb ka mid ah sheekooyinka laga hayo ninkaasi oo laga soo guuriyey buuggaas oo la qoray muddo imika laga joogo 77 sannadood. waxa uu yiri marka dhibaato laba qof ama laba kooxood ay dhex timaado waxa loo saaraa xeerbeegti. xeerbeegtidaas oo ka kooban niman cadaalad, caqli wanaagsan iyo dhaqan diimeed wanaagsan intaba lagu tuhmaayo. labada kooxood ee is haysaa waxa ay qolo waliba keentaa markhaatiyaashoodii marka xaajada la eegayo. kadib marka ay xeerbeegtidaasi dhagaysato qolo walba dacwadda ay doonayaan inay halkaa ka soo jeediyaan, waxa ay halkaa ku maqashiyaan wixii ay gartaa ku naqeen. haddii labada qolo mid ka mid ah ay ku kalsoonaan weydo go'aankii halkaa ka soo baxay, waxa dacwadda ay u gudbiyaan guddi sare taasoo xeerku u ogol yahay. haddii xaajada la isku hayo marmar la isku mari waayo oo la isku keeni waayo si loogu heshiiyo, waxa xaajada loo gudbiyaa nin odaya oo dadka oo dhani ay ku kalsoon yihiin. talada markaa ninka odaygihi gaadho ayaa markaa noqotaa kama dambayntii. waxa uu yidhi Ibraahim waxa laga yaabaa dacwadaha qaarkood inay muddo dheer socdaan. Ibraahim waxa uu saaxiibadii u sheegay inuu aad uga tiiraanyoonayo waxa uu ku sheegay dhaqanka aan fiicnayn ee shisheeyaha ee dadka magaalo joogga ay dadka Soomaaliyeed ee miyiga joogaan ay u keeneen. waxa umuurta uu ku sheegay beenta isma sabidka iyo lacag jacaylka. waxa uu yidhi markii anigu aan yaray ee aan miyiga joogay beentu waxa ahayd wax aad looga xishoodo. qofka beenawaaska ana wuxuu ahaa qof tilmaaman oo ra'yigiisa la takooro. markuu Ibraahim Ismaaciil umuurta ka warramayay waxa uu soo qaaday sheeko Soomaaliyeed oo dhacday. nin odaya ayaa waxa loo sheegay ayuu yidhi in inankiisii dacwad lagu qaaday. waxa ninkii odayga ahaa sheekada loo sheegay ay weydiiyey in inankiisii dacwadda ogolaaday markii lagu qaaday iyo in kale. waxa loo sheegay in inankiisii dacwaddii aqbalay uu ogolaaday. cabaar intii uu aamusnaa ayaa wuxuu yidhi allaylehe waa igu bannaan yahay. Ibraahim Ismaaciil wuxuu ka warramay in cadaaladdu ka mid tahay dhaqanka Soomaalida. waxa uu yidhi markii lacagta iyo dhaqanka magaaladu soo galay nolosha miyiga Soomaalida ayaa waxa baaba'ay dhaqankii hore ee Soomaalida oo aan laga aqoonin beenta iyo lacag jacaylka. Ibraahim Ismaaciil waxa uu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay erayadan: haddii aan waddankaygii nolol ku gaadho ma hubo inaan si fiican u ladi doono, sababta oo ah urkutaalada aan ka qabo tacliin darrada dadkayga. waxa uu yidhi waxaan saaxiibadayow idinka warramay wixii aan ka xasuusnaa nolosha dalkayga iyo dadkayga, iyo waxa nolosha ilbaxnimada loo yaqaana nolosha xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ay u keentay. waxa uu yidhi waxaan garashadiina ku dhaafayaa wixii idinla tahay nolosha dadka Soomaalidu iyo wixii aan idinka warramay waxa idinka cajabiya. Ibraahim Ismaaciil waxa uu yidhi waxaan tahniyadaynayaa dadka mufakkiriinta ah ee iyagu ka xoroobay
midabka qoloqolada iyo qaranqaranka ee bili-aadmiga oo dhan u arkaya mid qudh ah kana shaqaynaya siday ugu noolaan lahaayeen nabadgelyo iyo jacayl. waxaa dhegaystayaal anigana si gaara ii xiise geliyey 77 sannadood muddo iminka laga joogo sida ninkaa soomaaligii uu u fakarayey. intaasna waxaannu ka soo qaadnay buuggii laga qoray sheekooyinkaasi ninka soomaaliga ah ee la yidhaahdo ibraahim ismaaciil.